suxufiyiinta kala duwan ee ka howlgasha magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa maanta shir jaraa'id oo ay ku qabteen gudaha magaalada Berbera waxay si adag u cambaarayeen xukunkii maalintii shalay ahayd maxkamadda gobolka Hargeysa ay ku riday mulkiilaha iyo tifatiraha wargeyska Haatuf taasi oo shalay maxkamaddu ku riday xukun dhan 3 sano mulkiilaha wargeyskaasi halka tifatirihii wargeyskana lagu xukumay 4 sano oo xadhiga iyo ganax lacageed iyo sidoo kale wargeyska oo lagala noqday ruqsadii howlgalka haddaba saxafiyiinta oo baaq u diray hay'adaha caalamiga iyagu ka shaqeeya cadaaladda iyo garsoorka iyagoona xukunkani ku tilmaamay mid dulmi cad lagu badheeray xidhitaanka wargeyskaasi saxafiyiintan oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan xukunkii shalay ku dhacay mas'uuliyiinta wargeyska Haatuf ayaa waxay yiraahdeen sida tan waxaan halkan si weyn ugu cambaaraynaynaa waan u soo jeedinaynaa xukunkii shalay lagu riday suxufiga weyn ee Yuusuf Cabdi Gaboobe iyo tafatirihiisii xukunkaasi waxaan leenahay wuxuu ahaa mid cadaalad darro ah wuxuu ahaa mid sii qoran oo aan ahayn mid sharciyadiisii la mariyay baaq u dirayna xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay haddaan saxaafadiinahay aburis iyo cadaadis midna wax kuma yimaadaan madaxweyne arrinkaasi soo fargeli xukunka dhacayna dib looga noqdo maantana waxay suxufiyiintu halkan isugu yimaadeen inay ka hadlaan ama ay cambaarayaan xarigii iyo tacaddigii ka dhanka ahaa wargeyska madaxa bannaan ee Haatuf mulkiilaha wargeyska Yuusuf Cabdi Gaboobe iyo tafatirihii guud ee wargeyska maxkamadda gobolka Hargeysa shalay ku riday ee ahaa 3 sano iyo waliba lacagta shilin Soomaaliland ay aad ka u badnayd waxa ay kaga hadlayaan xarigii cadaalad darrada ahaa ee lagu la kacay odayga saxaafadda ama seniorka saxaafadda iyo tafatirihiisa Yuusuf Cabdi Gaboobe iyo Axmed Cali Cige horta xukunkaasi inuu ahaa mid xaaraan ah oo cadaaladda ka fog cidna la weydiin maayo anigu waxaan ka mid ahay waliyaasha inta ay xukuumaddani joogtay xariga dhowrka jeer lagu la kacay muddo 4 jeeraba wala xiraanaya madaxweyne Yuusuf Cabdi Gaboobe ma aha markii ugu horeysay la xiro xukuumaddii ka horeysay ee aad bedeshay ee daahir riyaale ayaa xidhay xarigu waxba ma dooriyo waxaan ku sheegayaa madaxweyne in riyaale intii uu tirada dalka hayay wuxuu xidhay saxafiyiin aan gaarayn dhowr iyo 20 hadda maantood 4 sano xilka haysay baad 80 suxufi maraysa haddaan saxaafadda nahay gobolka Saaxil aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa waxaanu leenahay xukunkaasi dhacay waa mid cadaalad darro ku dhacay ee hoos loo eego oo arrinkaasi waxa ka qabtaan garsoorka maanta iyo xukuumadduba Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.